Assalaamu calaykum. Thomas Edison waxa uu ahaa mid ka mid ah hal-abuurayaashii ugu caansanaa ee dunida soo maray. Wuxuu ku dhashay magaalo yar oo ku taalla Mareykanka 1842. Xilligii uu ahaa wiil da'yar ah, Thomas iskuulka kuma uusan fiicnayn. Macalinka ayaa mar hooyadii u sheegay in wiilkani yar yahay mid stupid ah. Sidaas daraaddeed, hooyadii waxa ay wax badan ka ogaatay wiilkeeda xaaladdiis. Hooyadii waxa ay fahantay in cunugeedu yahay mid aad u caqli badan. Sidaas daraaddeed, iskuulkii ayay ka saartay, waxayna bilowday in iyadu qudheeda wax barto. Thomas Edison waxa uu noqday mid aad u xiiseeya hal-abuuridda mashiinno cusub. Mid ka mid ah waxyaabihii ugu horreeyay uu soo hindisay ayaa ah mashiin yar oo loo isticmaali jiray in lagu xisaabiyo codadka. Sidaas daraaddeed, dowladdu ma aysan jeclaysan hal-abuurkiisa. Edison ma uusan niyad jabin, wuxuu sii waday halgankiisa. Raaciisa labaad waxa uu ahaa qalab loo isticmaalo in lagu duubo qiimaha badeecada. Hal-abuurkani wuxuu ahaa mid aad caan u ah oo guuleystay. Dabcan, hal-abuurkii ugu fiicnaa taariikhda Edison waxa uu ahaa markii uu soo saaray leerka. Edison ka hor waxaa jiray leerar aad u yar balse aad qaali u ah. 1879, Edison wuxuu daaha ku rogay nooc cusub oo leer ah, kaasi oo wax lagu ifin karo muddo aad u sanado yar gudahooda. Leerka uu soo saaray Thomas Edison waxaa loo isticmaalay waddooyinka magaalooyin ku yaalo waddamo fara badan oo caalamka ka mid ah. Dadkuna waxa ay bilaabeen in ay u isticmaalaan guryahooda. Waxaa jiray waxyaabo kale uu Edison soo ikhtiraacay balse aan maanta la isticmaalin. Waxaa ka mid ah aaladda loo yaqaan phonograph. Wuxuu ahaa mashiin loo isticmaali jiray in lagu duubo codadka sida myuusigga iyo sheekooyinka. Edison uu soo saaray mashiinkani 1877, waxa ay ahayd waqtigii ugu horreeyay ee uu qof waliba awood u yeeshay in uu kaydsado codkiisa. Maanta dadka ma isticmaalaan aaladda phonograph, midaas beddelkeeda waxay isticmaalaan aalado kale oo ay ka mid yihiin CD-ga si oo lagu duubo myuusigga iyo codadka. Sidoo kale, Edison waxa uu horumar ballaaran ku sameeyay aalado kale oo horey loo soo hindisay. Tusaale ahaan, wuxuu horumar ballaaran ku sameeyay telefoonka iyo kaamirada oo loo isticmaalo in lagu duubo filimaanta. Sidaas daraaddeed, Thomas Edison hal-abuuradii u khaaska ah ee lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah leerka iyo aaladda phonograph. Edison waxa uu noolaa muddo fog, wuxuuna geeriyooday 1931. Inkastoo Edison uu ahaa hal-abuur rug-cadaa ah, wuxuuse aaminsanaa in guushiisu ay sabab u tahay saacado fara badan oo shaqo adag ah. Qoraahyada uu ku caan baxay Thomas Edison waxaa ka mid ah: qofka guuleysta waa in uu leeyahay afkaar wanaagsan, balse shayga ugu muhiimsan waa shaqada.